subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba. xisbiga himilo qaran ayaa shaqo joojin ku sameeyay xildhibaan ay uga shakiyeen inuu basaas u ahaa farmaajo iyo qayre. maamulka Puntland ayaa sheegay in madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya ay cadaadis ku hayaan dhaqaalaha maamulka Puntland. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Galmudug ayaa ka shifay siro badan oo ay qarinayeen madaxda filla Soomaaliya. ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saaka dhaqdhaqaaq ciidan ka wada deegaano hoos yimaada degmada Waajid ee gobolka Boqol ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 10 sano ayaa laga joogaa qaraxii hotel Shaamoy oo ay ku dhinteen arday qalin jebinaysa iyo wasiiro ka tirsan dawladda federaal oo dawladda ku meel gaarka ah ee waqtigaasi jirtay. safiirada beesha caalamka u jooga Soomaaliya ayaa bilaabay kulamo ay la qaadanayaan xubnaha mucaaradka ku ah dawladda dhexe ee Soomaaliya. ciise saaka ka taagan degmada Buula Burde iyo ciidamada booliiska degmadaas oo xabsiga dhigay odayaal dhaqameed caan ka ah degmadaasi. akhbaaraadka dibadda warbaahinta Simba subaxnimadkan idin haysana dhageystayaal waxaa kamid ah hogaamiyaasha ururka NATO oo shir ku leh magaalada London ee dalka Britain. iyo Amnesty International oo war ka soo saartay mudaharaadka ka socda dalka Iran. mar kale subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo Talaado ah taariikhduna ay ku asteysan tahay 3 bisha 11 ee December sanada 2019 ku soo dhawaada warkii oo dhan. aan ku bilaabay xisbiga uu hogaamiyo madaxweynihii dawladda ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed ayaa shaqo joojin waxay ku sameeyeen xildhibaan waxoogayay xisbigaasi sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdicasiis Beereed. xisbiga himilo qaran uu majaraha u hayo madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ahayd Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa ay shaqo joojin ku sameeyeen xogayay guud ee xisbigaasi Cabdixakiin Macalin Axmed ka oo gabi ahaanba shaqada laga joojiyay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xisbiga himilo qaran. xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed markii xilka laga qaaday kadib ama shaqo joojinta lagu sameeyay waxa uu bartiisa Facebook ku soo qoray qoraal uu ku cabirayo dareenkiisa ku aadan shaqo joojinta ay ku sameeyeen xisbiga himilo qaran. xubnaha xisbiga qaarkood waxaan aad ugu kala aragti duwanaanay isku day ay wadaan siyaasiyiinta qaarkood oo ah in colaado laga horiyo deegaanka aan anigu matalo ee Dhuusamareeb iyo guud ahaan Galmudug si fowdaas looga dhex raadiyo dana siyaasadeed oo aan u arkay inaysan deegaanka dan ugu jirin ayuu yiri xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo isagu bartiisa Facebook ku soo qoray qoraal. xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo sii hadlayay ayaa yiri ma jirto ciidan Etoobiyaan ah oo aan kan AMISOM ahayn oo Dhuusamareeb jooga laakiin waxaan rabaa inaan cadeeyo marnaba inaanan raalli ka noqonaynin in ciidan Etoobiyaan ah iyo mid kale toona ay fargeliyaan nidaamka doorashada ee Galmudug. sidoo kalena lama aqbali karo in buunbuunis iyo been abuur lagu dhaawaco hanaanka dib u heshiisiin iyo doorasho ee Galmudug ayuu sii raaciyay hadalkiisa xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed maalin oo bartiisa Facebook ku soo qoray qoraal uu ku cabirayo dareenkiisa kadib markii ay shaqo joojin ku sameeyeen xisbiga himilo qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
maamulka Puntland waxa uu sheegay in madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya ay cadaadis ku hayaan dhaqaalaha maamulka Puntland. xiriirka u dhaxeeya dowlad goboleedka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya bilihii u dambeeyay ma ahayn mid wanaagsan tan iyo markuu xilka qabtay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani horaantii sanadkan sii dhamaanaya ee 2019. Dani oo hadda xilka haya 9 bilood iyo dhowr iyo 10 cisho hal mar muusan imaan magaalada Muqdisho halka min 3 jeer uu tagay dalalka Itoobiya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta. dad badan ayaa su'aal waxay ka keeneen xiriirka hadda u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada siiba maamulka Puntland oo lagu tiriyo inuu yahay hooyada federaalka. wasiirka warfaafinta maamulka Puntland oo warbaahinta qaarkood kula hadlayay magaalada Garowe ayaa waxa uu si ba'an u weeraray shakhsiyaad uu sheegay inay u adeegayaan madaxda filla Soomaaliya isagoo dhinaca kalena tilmaamay in ay iska qaban doonaan kuwaasi. waxa uu sheegay in madaxda hadda joogta filla Soomaaliya ay dhaqaalaha Puntland cadaadis ku hayaan isagoo tusaale u soo qaatay inay ka hor yimaadeen madaxda filla Soomaaliya booqashada uu Dani ku jooga Imaaraadka Carabta iyo in Dani ay uga digeen madaxda Soomaalida gaar ahaan Farmaajo iyo Kheyre inuu heshiisyo la galo Imaaraadka Carabta. heshiisyadaas ayaa qaarkood waxay dhigayaan in Imaaraadka Carabta gebi ahaanba sanado badan lagu wareejiyo garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso dekada magaalada Boosaaso oo horey ay u maamulayaan qandaraaskana loo kordhin doono iyo arrimo kale. wasiirku arrimahaas ka hadlayana waxa uu yiri qaybta horumarinta dhaqaalaha madaxweynaha wuxuu yiri xagga infrastructure marka kale inagu dhaqaale aan wax ku maal gashano oo jidad ku samaysano ama ku samaysano muxuu ahaa airport ama dekada ku samaysano inagu ma haysano cid maal gelisaan raadinaya heshiisna waan la gelayaa wixii iyaala dhaqaalahooday gashanayaan inana waynu manaafacadsanaynaa waxa inoo haraya hantiduna inaga inoo haraysa adeerow arrimahaas looga dambeeyay madaxweynaha canjarafaynta iyo hadalka xunna hal iska daayo gobolada Puntland waxa ugu dib dhacsan oo ugu xun gobolada aan ka soo jeedo wali dhowr iyo 10 sanadood kelmadaha aan ka maqlay Puntland gobolada qaarkeed wali xitaa kuwaas waligood ma oran afkooda taas kama soo bixin dal baan la ka iibsanayaa afkooda kama soo bixin wax kale ay yiraahdeen arrimaha ku saabsan dakhliga iyo dhaqaalaha haddii si kale loo maamuli jiray madaxweynaha wuxuu yiri danti inta ina ka dhaxaysa baan ku maamulayaa wixii soo gala qof shakhsi iyo jifo iyo qabiil iyo oday aan gaar wax u siinayaa ma jiro mushaharkan ku bixinayaa hawlaha dawliga abaan ku bixinayaa wali intaas dadka qaar ba istiitiinaya meeshay arrimuhu kaga socdaanna waa fahmayna arrimaha reer Puntland aqliga dib hay isugu celiyeen aka tanaasuleen arrimaha wasiir halka la socod wasiirka ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ay wadaan dadaalo ku aadan sidii ay wada hadal ula geli lahaayeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mar uu warbaahinta kula hadlayay deegaanada Puntland. si kastaba ha ahaatee maamulka Puntland ayaa hadda waxa uu wajahayaa culeysyo dhan walba ah oo dowladda federaalka Soomaaliya uga imaanaya. magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudugna waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay gaaraan qaar ka mid ah ergooyinka la filayo inay soo xulaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug. walow uu muran ka taagan yahay qaabka hadda dowladda Soomaaliya ay wajahayso arrimaha maamulka Galmudug ayaa haddana waxaa jira arrimo dhowr ah oo wax la iska weydiinayo odayaasha la xareeyay iyo hadiiba ay yihiin kuwii loo baahnaa. gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Galmudug oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay inay jiraan daldaloolo iyo sidoo kale tabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah ergooyinkaasi isagoo dhinaca kalena sheegay in ay xalintooda wadaan. maxaa procedure ah ama habraaca oo loo maray yaa iska leh mas'uuliyadeeda yaa maaragtay wax ku darsaday yaa wax ka dhigay su'aalahaas oo dhan waxaan rajeynayaa inay waafi yihiin oo ay shaafisay inay yihiin odayaashii cadaado ku soo dhisay dowlad goboleedka Galmudug oo aan laga bedelin maaragtay wax laga bedelin markii laga reebo
saddexaas qof aan idiin sheegay ayagana loo maray process ayaan rabaa inaad ila wadaago qodobka labaad oo aan rabaa inaad ila wadaago waxaa waaye waxaan ognahay in still ay shaqo dhiman tahay shaqadaas oo ah in odayaalkaas ayaguna soo odayaashaas wasaaraddu ay soo gudbisay ay qaar ka mida dood ka taagan tahay ay qaar ka mida maaragtay la isku haysto qaar ka mida aysan imaanin oo ay maqan yihiin qaar ka mida maaragtay ay jiran yihiin kuwaasna waxaa u yaalla habraac iyo xallin ama guddi xallin khilaafaad oo qabaa'ilada iyo odayaasha iyo dadka la isku haysto hawshooda gelaya ayagaas ayaana maaragtay waajibaadkooda yaa gudanaya ayagaas ayaana soo kala saaraya waxaan rajaynaynaa inaysan badnaanin laakiin inta jirta macnaheedu ma ahan hadda qof kasta markuu halka yimaado inay tahay qofkii ugu dambeeyey oo hawsha soo gebagabeynaya macnaha dood qofkii ay ka socoto ama sababtaasu nuucay rabtaba ha ahaato guddigaas xallinta khilaafaadka oo ka tirsan guddiga maamul dhisidda ayaa hawshooda gelaya procedure iyo habraac ay u degan bay qaadanayaan kaas ayaa lagu soo kala bixi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo si kastaba ha ahaatee saacadaha soo aadanna waxaa la filayaa in odayaasha dhaqanka soo xulaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga farsamo ee doorashooyinka galmudug ay kulamo yeeshaan kulamadaas oo la filayo in lagu xaliyo tabashooyinka qaar oo ay qabaan odayaasha la filayo inay soo xulaan xildhibaanada cusub ee galmudug. ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa saaka dhaqdhaqaaq ciidan waxay ka wadaan deegaano hoos yimaada degmada Waajid ee gobolka Bokool sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdifataax Muumin. ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee amisom iyo waliba kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maleeshiyada markaasi ka amar qaata maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxay saaka dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan deegaano hoos yimaada degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bokool. degmada Waajid ayaa waxay tahay degmo markaasi baaxadeedu ay weyn tahay isla markaana oo inteeda badan ay gacanta ku hayaan kuwa dagaalamayaasha al-shabaab iyadoona ay godoomiyeen al-shabaab muddo ka badan 15 sano waxaana degmadaasi lagu soo waramayaa in saaka dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika amisom oo ay kaashanayaan kuwa maamulka koonfur galbeed. dhaqdhaqaaqaas ayaa loogu gol leeyahay sidii dagaalamayaasha al-shabaab looga saari lahaa godoominta ay godoomiyeen degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bokool. Waajid ayaa waxay tahay degmad aad baaxadeedu u weyn tahay iyadoona ay u dhaxayso degmooyinka ama deegaanada Baay iyo Bokool iyadoona marinka ugu weyn ay tahay isla markaana godoomintaas ay muddo ka badan 15 sano ay godoomiyeen al-shabaab. waxaana sidoo kale dadka ku nool halkaas ay yihiin kuwa dhibaatooyin kala duwan qaba sida ay sheegeen qaarkood ay la hadleen warbaahinta Simbe magaalada Muqdisho. waxaana dhaqdhaqaaqyadan ciidan saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo la hadlay raadiyo Simbe ay sheegeen inay u gollo yihiin sidii ay isugu furi lahaayeen degmada Waajid oo ay wadooyinka soo galo ay intiisa badan ay godoomiyeen al-shabaab. ciidanka midowga Afrika amisom gaar ahaan kuwa Ethiopia ayaa ku sugan deegaano dhowr oo ka tirsan deegaanada u kaar maamulka koonfur galbeed iyadoona inta badan dhaqdhaqaaqyo noocan oo kale ay ka sameeyaan deegaanada ku dhow degmada Waajib iyo deegaano kale dhowr iyo degmooyinka qaar oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab. waxaana sidoo kale kuwa midowga Afrika iyo dowladda federaalka Soomaaliya qaybteeda 6aad oo halkaas ku sugan ay muddooyinka ugu dambeeyay ay sheegayeen in ay dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay ka sameyn doonaan gobolada uu ka armay maamulka koonfur galbeed oo gacanta ay ugu jirto dagaalamayaasha al-shabaab iyadoona sidoo kale saraakiishana la hadla ay sheegeen in ay markii ay soo gabagabeeyaan dhaqdhaqaaqyadooda ciidan iyo howlgallada ay ka wadaan deegaanada dhowr oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan degmada Waajid ay faahfaahin ay ka siin doonaan warbaahinta ha yeeshee iminka aysan wax faahfaahin aysan ka bixin karin dhaqdhaqaaqyada saaka ay ka wadaan deegaaniya degmooyin ka tirsan degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bokool. Waajid ayaa in muddo waxa ay u xiran tahay dagaalamayaasha al-shabaab iyadoona aan shacabka iyo waliba dadka ku nool halkaasi aysan iskaga kala gooshi karin ha yeeshee mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa dhowr jeer hore waxay sheegeen in ay go'doonta ay ka qaadi doonaan degmada Waajid iyadoona Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen tan iyo markii uu ku jiray
ololaha doorashooyinka uu sheegay in deegaanada qaar oo ay gacanta ku hayeen al-shabaab muddo sanad gudaheeda ay kaga soo wareejin doono. Ha yeeshee hadalkiisa ayaa u muuqda mid aan waxba ka qaban tani markii loo magacaabay xafiiska madaxtinimo ee maamulkaasi. weli warka subaxnimo ee raadiyaha Simba ayaad maqlaysaan dhageystayaal. markan haddaan eegno akhbaaraadka dibadda, hogaamiyaasha ku bahoobay ururka NATO ayaa la filayaa inay maanta shir ku yeeshaan magaalada London. 10 sano ayaa laga joogaa markii la yagleelay ururka NATO oo ay ku bahoobeen wadamada ugu awooda badan adduunka, waxaana la filayaa in dib loo eego guulihii la gaaray iyo dibdhicii ururka NATO. waxaa la filayaa sidoo kale in shirkan ay kasoo qeyb galaan dalalka Mareykanka iyo sidoo kale Turkiga oo ah labada wadan ee ugu ciidanka badan ururkan. sidoo kale waxaa la filayaa in la bedelo xogayihii ururka isla markaana shaqsi kale lagu bedelo sida ay wararku tilmaamayaan. ugu dambeyntiina hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee lagu magacaabo Amnesty International ayaa war ka soo saartay mudaharaad ka socda dalka Iiraan. Amnesty waxay sheegtay in tiro ka badan 420 ruux lagu dilay mudaharaadka ka socda guud ahaan dalka Iiraan, gaar ahaan caasimada dalkaasi ee Tehran. Amnesty waxay hadda jeedinaysaa baaq ku aadan in la yareeyo xadgudubka loo geysanayo dadka shacabka ah isla markaana la dhowro xorriyatul qowlka, si hay-addu ay tiri in ay dadku mudaharaadi karaan. warkan ka soo baxay Amnesty International ayaa ku soo aadaya iyadoo hogaamiyaasha diinta dalka Iiraan iyo sidoo kale hogaanka dadka dibadbaxa dhigaya ay wadahadal ku leeyihiin dalka Iiraan. guud ahaan dhageystayaal warkii subaxaad kala socoteen idaacadda Simba waa naga inta